munaasabad ballaaran oo si heer sare loo sagaasimay ayaa maanta ka dhacday macadka barashada quraanka kariimka Al-Furqaan. munaasabadan oo xilka lagaga wareejinayay maamulihii hore ee macadka barashada quraanka kariimka Master Cabdirashiid Xaaji Samatar isla markaasna loo doortay Shaafi Axmed Cali. sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshooyinka reer Buuhoodle, isimo, cuqaal, culamaa diin, waxgarad iyo waliba bulshada qaybaheeda kala gedisan. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maamulka ku-xigeenka macadka barashada quraanka kariimka isagoo faahfaahin dheeraada ka bixiyay muddadii macadkan la aasaasay iyo waliba waxyaabihii uu soo qabtay. Axmed Maxamed Samatar 13 hablood iyo 13 wiil waxa macadku u dhisan yahay u samaysan yahay waxa weeye in lagu diyaariyo dad culimo oo ducaada oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa dadka gaarsiiya oo shariicada islaamka xambaarsan inuu soo saaro. 13 arday buu sanadkii koowaad dafcadii koowaad ahayd. dafcadii labaad sanadkan aynu xafladeeda isugu nimid mar hore inteena badan qaar badan naga mid yihiin iyana waxay ahayd 27 arday 13 hablood iyo 14 wiil. macadku wuxuu ku xiran yahay hoostaga jaamacadda Bariga Afrika. mushaahado toos ka qaata muqarrarka iyo daraasadana ka qaata. mustawaha uu macadku inuu ku siman yahay ama bulshada u yahay waxaan isleeyahay bulshada in badan ma dareensana waayo meel manbaca oo shariicada islaamka soo baxayso oo warshad ah oo dad soo saaraysa weeye. waxaan moodaa inaynaan aad bulshada u dareensanayn muhiimadda macadkan leeyahay. macadku wuxuu dhismihiisa waa aragtaan wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood oo rag iyo dumar ah. hadda macadkan dhismaha joogno waa 13 fasal 6 fasal oo ardaydu ku dhigato iyo 2 fasal oo lagu dhigto maxaan ku raraa xafiis iyo maktabada un baa diyaarsan inta kale waa qabiyo. marka macadka iyo xagga dhaqaalihiisa iyo cidda dhistay iyo sidoo horumaray iyo waxa hadda ka dhiman iyo waxaan uga tagayaa odayaasha howlwadeenka ka ahaa anigu kaliya waxaan ka warbixinayaa tacliintiisa. macadka waxaa lagu soo kordhiyey qayb tamhiidi ah oo la dhigan doono habeenkii ama galinka dambe oo macadku qaadan doono oo 2 sano ah marka ardayda lagu diyaariyo marka macadka sanana geedi doono 3 sano. waxaa looga dhawaajiyay in lagu soo kordhiyey diblom oo ardaydii sanad walba ka baxaysay dhammaantood jaamacadaha dawladda ma wada aadi karaan. taayin sarena waa u baahan yihiin. marka baahida markii la arkay iyana diblomkaas oo la keenay 2 sano ah waxa weeye ardaygu jaamacadda barkeed uu ku dhigan karo halka 2 sano marka jaamacad aadi karo ama shahaado qaadanayo iska joogayo علوم كفلان معadka iyadoo aynu u baahannahay dheeraad badan inaynu ka helno. iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cumar Sheekh Cusmaan oo ka mid ah golaha sare ee macadka oo inooga warrami doona macadka guud ahaan iyo gaar ahaanna diblomka macadka lagu soo kordhiyey. alxamdulillahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu calaa rasuulihi wabacd. gabagabadii munaasabadan ayaa Sheekh Cumar Sheekh Ismaaciil waxa uu ka hadlay inay furi doonaan haddii dhalinyarada reer Buuhoodle aqoontooda si siyaasadana jaamacado iyo waliba kuleejo lagu barto macadka diiniga iyo waliba maadooyinka kala gedisan. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada Buuhoodle si rasmi ah ugu soo badanayay dugsiyada wax lagu barto kuwa malcaamadaha macadada quraanka iyo waliba macadka tababarka caafimaadka ee OTTIB. geesta kale waxaa magaalada Buuhoodle maanta ka ambabaxay wafdi isugu jirta ismo, cuqaal iyo waxgarad iyagoo ambabaxay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo muddooyinkii u dambeeyay ay ku dhex marayeen dagaalo xooggan maleeshiya beelada ka soo jeeda deegaamadaasi iyo waliba ciidamada maamulka Puntland. wafdidan ayaa iyadoo ay tii ugu ballaanada abid ka tagtay magaalada Buuhoodle xarunta gobolka isla markaasna u aaday magaalada Gaalkacyo arrimo nabadeed. geesta kale magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo warramayaa in imika xaaladeedu kala degan tahay. Cabdiweli Cabdi Xiis, telefishinka caalamiga Somali Satellite.